ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay labada qolobo kuwa xumaanta sameeyey iyo kuwa ka aamusay ee ka reebi waayey inay yihiin kuwa wuxuu sameeyey oo ay ku mutaysteen ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa inuu ka didiyo, ilaahay cadhadiisu inay ku dhacdo, ciqaabkiisuna uu ku habsado. arrinka noocaasi maaha mid ku gaara reer banu israa'iil, waa arrin ku xidhan ficil. cid kasta oo ficilkaa samaysaa arrintaa iyagay kala xukum noqonaysa, waxaana naftooda ay u bandhigeen oo ay u sababeen ciqaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala qoladaasi uu sheegay. magaaladan Hargeysa ee aynu degannahay ee maanta salaada jumce aynu ku tukanayno, xalay waxaa ka dhacday iyo marar hore ka horeysayba macsiyatun cadiima tusqitu rabba alcaalamiin, macsiyo aada iyo aada u weyn oo allaha caalamiinta abuuray ka cadhaysiinaysa, oo haddaynu ka aamusno nacdasha ilaahay ay nagu dhacayso sida ilaahay aayaddaasi uu ku tilmaamay. maaha macsiyo dadka qaarkood si hoosoo qarsoon ay u sameeyeen. hadday sidaa noqon lahayd iyaga ayuunbaa loo tegi lahaa oo la waanin lahaa. waa macsi bannaanka loola soo baxay oo la muujistay, waa macsi laga sii daayo warbaahinta oo caalamka meel walba laga daawaday, kadibna la baahiyo maanta meel walba ku jirta oo dhalinyarteenna hablo iyo inamaba ay maantaba laga yaabo qaar badan inay daawanayaan. waxaa dhacday in hool weyn ay isugu yimaadeen dad tiro badan oo rag iyo dumarba leh, oo dumarkaasi in badan oo ka midi ay yihiin kuwa qaawan, timahoodu ay qaawan yihiin, cawradoodu bannaanka ay taallo. ragga iyo dumarkaasi waa isku dhex jiraan, waa isjiidjiidanayaan oo waa isqabqabsanayaan. qaarkood muusig baa meesha laga garaacayaa, heesana waa laga tirinayaa. dadka inta kalena falkaa foosha xuna ilaahay ka cadhaysiinayay daawanayaan oo qaar fara badani ay la dhacsan yihiin, ay mirqaansan yihiin, oo iyaga laftoodu laga yaabo inay la qaadaan amaba se dadkaasi ay la ciyaaraan. arrinka noocaasiya in laga aamusaa waa xaaraan. in laga hadlo ummadda looga digo, ilaahayna looga bari noqdo ayaa waajiba. arrinka noocaasi inuu xaaraan yahay ma aha mid qof muslima ka shaki geli kara. culamaau lislaam laga soo heli maayo horrayso iyo dambayso mid yidhi waxaasaa xalaala. inay dumarku sidaa isu qaawiyaan oo rag iyo dumarku sidaa isu dhex galaan iyagoo ajanabi kalea sidaa ay isu taataabtaan oo ay tiriyaan heesaha noocaasa ee fuxshiga iyo foolxumada xambaarsan, in la garaaco muusigaas, arrinta noocaasi ahi inay xaaraan tahay waa mid ay isku waafaqsan yihiin culamada islaamka, kuwii hore iyo kuwa maanta joogaba. arrinka noocaasi wuxuu sababayaa ciqaab ilaahay, wuxuu ciqaabka ilaahay u sababayaa kuwa samaynaya haddaana ilaahay subxaana wa tacaala uga toobadkeenin. wuxuu ciqaab ilaahay u sababayaa kuwa lagu dhex samaynaya ka aamusan ee aan ka hadlahayn, ee aan u hoggaansamahayn amarka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee uu yihi man ra'aa minkum munkaran falyugayiru biyadih fain lam yastatic fabilisanih fain lam yastatic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan. qofka idinka mid ee arka wax shareecadu diidoo la samaynayo, hadduu awoodu leeyahay oo maamulkiisa waxaasi uu hoos yimaado iyo taladiisa, gacanta waxaa kaga qabto ha ku bedelo. haddaanu taa awoodina ha ka hadlo oo xumaan inuu yahay ha sheego, haddaanu awoodina qalbiga ha ka naco. maanta saddexda arrimoodba dad awoodo ayaa jira, dad laba awoodo ayaa jira, dad mid awoodo ayaa jira. qof kastoo saddexda arrimood ee nebigu uu ina faray calayhi salaatu wasalaam awooda ama qaar ka mida awooda oo amarkaa nebiga calayhi salaatu wasalaam fulin waaya, waxa uu xukunkiisu noqonayaa sidaa ilaahay reer banu israa'iil uu ku sheegay. nacdashaa ilaahay reer banu israa'iil ku dhacdayda isagana ku dhacaysa.
ilaahay baynu nacdashiisa ka magan gelayna cid muslima lama jeclin nacdasha ilaahay inay ku dhacdo waxaynu uga hadlaynaana waa taas arrinka noocaasi ciqaabka aakhira intaan la gaadhin ciqaab adduunye ayuu leeyahay waxaan jeclaysay 3 xadiid inaan xusuusiyo dadka muslimiinta ah oo ka warramaya dhaqanka noocaasi ciqaabka ilaahay inuu sabab u noqonayo adduun iyo aakhiraba si gaarana adduunyada axaadiidu ay u tilmaantay xadiidka koowaad cimraan ibnu xusein radia allahu canhu ayaa nabiga calayh isalaatu wasalaam ka wariyey wuxuu uhi rasuulku layakuunana fi hadihi اlumma khasfun wa qadfun wa maskun 3 ciqaab baa ummadan qaar ka mida ku dhici doona ciqaabka koowaad waa alkhasf waa dhulgariir iyo dhulgo dadka qaar in dhulka lala jaro in badan baynu maqalnay oynu daawanay dhulgariiro dhacaya iyo dhulgo meelo fara badan ilaahay subxaana wa tacaala uu ka riday oo dhulkiisa ka mid a marka horena waxaynu rumaysannahay inuu ilaahay subxaana wa tacaala arrinkaasi uu awoodo ciqaabka labaad waa alqadf waa in xagga sare ciqaab lagaga keeno dadka oo ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu doono oo ciqaaba xagga sare uu kaga keeno awoodna uma laha inay iska difaacaan ciqaabka saddexaadna waa almasku waa in la dooriyo oo dadkii bani aadamka ahaa ilaahay bani aadamnimo ku karaameeyey in xayawaannimo dib loogu celiyo oo suuradoodii la bedelo oo daayeero iyo doofaarra ay noqdaan 3daa ciqaab goorma ayay ku dhacayaan qaar ka mida ummadda nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam waa la weydiiyey nebiga calayhi الsalaatu wasalaam mataa yakunu dalika arrinkaasi goormu dhacaya qaala calayhi الsalaatu wasalaam wadalika ida sharabuu اlkhumuur ida sharibuu اlkhumuur waاtakhaduu اlqaynaat wadarabuu biاlmacaazif rawahu tirmidi 3 dembi dadku marka ay sameeyaan ayaa 3daa ciqaab ilaahay subxaana wa tacaala uu ku abaalmarinaya waa markay khamriga cabbaan oo khamriga cabbistiisu ay badato waa marka ay samaystaan hablo heesa adiga arkaya maanta sida loogu faaninayo hablaha macaasida iyo munkarka noocaasa samaynaya halkii looga nixi lahaa ee laga waanin lahaa ee ilaahay ka baqo waxaan iska daaya loo odhan lahaa arrinka saddexaadna waa markay muusiga garaacdaan wadarabuu bilmacaazif almacaazif waa aalaat llahi watarab waa qalabka heesaha loo garaaco weeye ee magacyada iyo noocyada kala duwan leh 3 ب3 3daa ummaddu markay samayso 3daasi ayaa sugaaya